Golaha Wasiirada Xukuumadda Somaliland oo shir yeeshay maanta ayaa ka hadlay go'aamo xasaasi ah oo ku saabsan xuduudaha Somaliland. War-saxaafadeed ay ka soo saartay madaxtooyada Somaliland ayaa waxa uu dhignaa sidani: kalfadhigii saddexaad ee ay yeeshaan Golaha Wasiirada uu shir gudoominayay madaxweynaha qaranka Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi kuna wehelinayay madaxweyne ku-xigeenka Mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa dood dheer iyo falanqeyn ay ka yeesheen xaaladda guud ee dalka iyo arrinta ka soo cusboonaatay gobolka Sool gaar ahaan deegaanka Tuka-raq. waxaa gabagabadii shirkaasi ka soo baxay go'aamo waxaana go'aamadaasi u dhignaayeen sidani: kow, in dowladda Somaliland ay sidii horeba ay u sheegtay ay ka go'an tahay inay ilaalinayso xuduudaheeda ogolaana doonin intaa ka mid ah dhulka Somaliland lagu soo xadgudbo. laba, in dowladda Somaliland u cadeynayso wadamada dariska ah iyo beesha caalamkaba inay ka go'an tahay nabad ku wada noolaanshaha iyo ilaalinta xasiloonida maqnaqada. saddex, in Golaha Wasiirada ee Jamhuuriyadda Somaliland ay si buuxda u taageereen isla markaana ay garab istaagayaan ciidanka qaranka kuna hawlan sidii ay u sugi lahaayeen xuduudaha Somaliland. afar, in ay Golaha Wasiiradu si buuxda u bogaadinayaan go'aanka labada gole ee guurtida iyo wakiilada ee xaaladda jiida hore. shan, in gudida dhaqaalaha iyo horumarinta ee Golaha Wasiiradu ay soo darsaan go'aanna ka soo gaaraan sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta hay'adaha caalamiga ah soona qiimeeyaan shaqooyinka ay hayaan ajaanibtu ee ay qaban karaan xirfadlayaasha muwaadiniinta ahi. lix, ugu dambeynna waxa ay golahu isku raacay qaab dhismeedka guddiyo hoosaadyada Golaha Wasiirada oo uu yeelanayo oo ah sidan: kow, gudida nabadgelyada oo ka kooban 5 wasiir. laba, gudida dhaqaalaha iyo horumarka oo ka kooban 9 wasaaradood. saddex, gudida arrimaha bulshada oo ka kooban 9 wasaaradood. gudida arrimaha dibadda iyo ictiraaf raadinta oo ka kooban 6 wasaaradood iyo gudida cadaaladda iyo shuruucda dalka oo ka kooban 6 wasaaradood.